maadaama aniga adiga aan wada soconno oo dad isjecel aan nahay wax yar oo maaragtay xoogaa dayn ah aan kaa qaato xoogaa hadda ay ogashahay ma intaas keliya intaas keliya ma ay weydiisatay intaas caadi waay tiri waxaas wax la isweydiisto maba ahaba taasoo kale maxaa samayn lahayd haddii atooro aad jeceshahay intuu kula soo xiriiro uu ku yidhaahdo waaba ku jeclahay anigana ka waran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ملك جوجتان وسلامتين وبرنامجكني دنجر شو وأad nooga barateen inaan idinkugu soo gudbino wararka la yaab kale iyo kuwa xiisaha badan iyo kuwa kale oo qosol kale arrintaas si dhab ay u dhacday waxaynu ku dhacday naag reer Los Angeles ah oo la yiraahdo Abigail Ruvalcaba naagtan waxay sheegtay atoorihii ay jeclayd Steve Burton inuu kala soo xiriiray Facebook atoorihii jeclayd waa kana Steve Burton atoorahan waxay tiri wuxuu igala soo xiriiray Facebook marka hore wuxuu bilaabay text message inuu kula soo xiriiro text messagekay ku wada xiriireen cabaaray wada sheekaysanayeen markii dambe wuxuu kusoo wacay video call way accept garaysay haddana video callkii ku wada xiriireen muddaa sheekadoodu socotay se u sheekaysanayeen maalin maalmaha ka mida wuxuu ku yiri horta ma ogsoon tahay dhibaatada isoo gaartay dabkii ka kacay ma ogeyd meesha ahayd Los Angeles inuu gurigayga ku gubtay ma lagu sheegay gurigaygiyaa ku gubtay hantideedii oo dhan aa ku baaba'day xoolihii aan lahaay oo dhan iyo barnaamijyadeedii oo dhan meeshaasi ku dudumeen marse tiri allah ma saasaa kugu dhacday marse yiri haa saasaa igu dhacday marka maadaama aniga adiga aan wada soconno oo dad isjecel aan nahay wax yar oo maaragtay xoogaa dayn ah aan kaa qaato xoogaa hadda ay ogashahay ma intaas keliya intaas keliya ma ay weydiisatay intaas caadi waay tiri waxaas wax la isweydiisto maba ahaba taasoo kale haddan kuu soo diray intee kugu soo shubaa lacagay shab akaankeeda uga soo bixisay way u dirtay meesha ugu soo diri lahayd u sheegay waa u dirtay lacagtii ay dirtay haddana waa la joogaa cabaar kadib haddana xiriirkooda way sii socdaa haddana lacag kale u dirtay maasajyada quruxda badnaa ee u soo diray waxaa ka mid a midkan wuxuu u soo qoray maasajkan uu leeyahay I want to live the rest of my life with you wuxuu yiri waxaan rabaa nolosheedii inta ka dhiman inaan kula noolaado waaba ku jeclaadayba marayse wuxuu yiri haddana Steve Burton waa magaciisa mogsanta iyo Abigail Burton iyada magaceedii last namekeeda Burton ma aha marka wuxuu leeyahay magaceedii isku lamaaninaya macnaha waa ku guursaday camal Steve Burton iyo Abigail Burton sounds like a dream come true waa laba magac oo la isu sameeyey laba magac oo la isku sameeyeyba waayba sida isugu qurxoon yihiin bal fiiri uu leeyahay you are my wife haddana ku soo xijiyay naagteedaba tahayba sidaaba naagteeda ku tahay hawadaa ka noqotay naagtii jaceylkii waa ku kordhay weeba kala badbadatay oo waxay noqotay haddee caadi ma wax allaal wixii sevinkeeda ugu jiray iyo lacagteedii oo dhan ninkaasay u wada shubtay waxay u shubtay ninka markaas waxay u shubtay lacag gaaraysa waxay u shubtay lacagtii ee u shubtay waxay gaaraysaa markaas 81,000 oo lacag ah 81,000 ee u shubtay markaas haddana waa la joogay lacag kale in kale haddana u shubtay intaas iyadoo la maraayo wuxuu u soo diray message kale uu leeyahay the beach house is something we will love baby macnaha beach house guryaha oo xeebta aan samaysanayna gurigaan xeebta ka dhisanaynaa waana jeclaan doontaa gurigaas macnaha si qurux badanaa gurigaas loo dhisayaa oo naqshad fiicana loo samaynaya aadana uga heli doontaa marka maxaa la dhahaye gurigaas oo beach house-ka ah aan kuu dhisaya waana ninaan lacag haysan lacagteeda waa wax lagu dhisayo ogsano wuxuu weydiistay marka inay lacag kale soo dirto si uu gurigaas ugu dhiso waxay tiri lacag ma hayo markay tiri oo lacagtii hadda wayba ka dhamaatay beenteed maaha wuxuu yiri gurigaaga maadaama milkigaaga yahay ad adiga leedahay gurigaaga noo iibi way diiday marka inta hore waxay tiri gurigayga gabadheeda igula nool oo hantida keliya ii soo hartay waaye xoogaa way ka leexleexatay diidma qayaxan maaha laakiin xoogaa way ka leexleexatay markaasaytu wuxuu yiri dhib ma laha xabiibti ma raba inaan gurigaaga maaragtay aniga ruuxadeeda dhib ay igu tahay marka iska badaaba waxay u soo qortay message-kan ee u soo qortay markii muddo la isjiijiidayay oo ay ka diiday inta hore oo dhan way ka diidanayd laakiin asagana wuxuu ka dhigay sidii nin maaragtay ee dhib ku tahay inuu yidhaahdo gurigaaga iibi laakiin haddana u baahan oo baahidina ay jirto maadaama uusan lacag uu gurigaas ku dhisa uusan haysan message-kan ay soo dirtay ee leedahay I remember you had suggested to sell this place waxaan xasuustaa inaa i weydiisay inaan gurigan macnaha aan iibiyo ay weydiisay I said no but now I don't care markii hore waxaan ku iri maya laakiin hadda
ma kala jecli waaba ku iibinayaaba guriga aan macnaha ee degan tahay ee waxay leedahay dartaa ayaan u iibinayaa lacagtiisa aan guriga kale ku dhisanaynaa. wuxuu usoo qoray if selling this place is what will give us a fresh start and bring us closer to where we both want to be, then I'm behind you. oo ugu soo qoray macnaha haddii gurigaan inta iibintiisa ee noqonayso wax aan labadeennaba ka faa'iideyno oo labadeennaba isu keen soo dhaweynayo, jaceylkeenni aan meesha kasii wadayno, habbigeenni iyo nolosheenni iyo aan hore usii dabaalanayno, anigana waa kugu raacsanahay, aan iibina marka guriga. nin fiican. naagta dafee tiri gurigii way iibisay. gabadheedaa marka la degan gabadheedaa guriga la degan. gabadheeda guriga la degneedaa waxay ogaatay hooyadeed xaalad markay meeshaas sheeko marayso ee gabadhay ogaatay habarta in maaragtay ay baryahan oo dhan wixii guriga yaalay oo dhan iyo wax walba hantideeda ah inay iibisay gabadha. mar dambey soo baraarugtay ee ogaatay markay aragtay habartii meesha sheeko marinayso. ee hooyadeed waxay tiri hooyo ninkan amuusan ahayn ninka aad u malaynaysid amuusan ahayn. ma iska hubisay markaas habarta waxay tiri ma ninka aan aqaano intaasoo sano fiirsanayay hadda xaalada ma iska hubisay jaceylkani meeshuu maraayo maba ogidba waaba isqabnaaba aniga ninka war ma haysid hawadaan iska guursanay. gabadhi waxay tiri hooyo isdeji tartiib. askartay wacday gabadhi waxay tiri hooyaday arrintaan aa soo korodhay waa idin baryayaa baaritaan ha la ii sameeyo. habartii way taagan tahay maya maya ninkan waa ninkii aan jeclaa cid kale ma aha ninkaan jeclaa waaye waana isjecelnahay gabar ay ammaan isii ha isoo faragelinin gurigaaban kaa saarayaaba hadalkaaga tirada badan. lacagta ee u dirtay total markii la fiiriyo lacag waxay u dirtay lacag gaaraysa 350,000. markii horena maxay siisay 81,000 ay siisay. markii hore 81,000 markii dambena waxay siisay 350,000 ee siisay oo gurigeedana ay ku iibisay. gabadhii dabagalkii ay samaysay booliiskii ay u dirtay inay soo baaraan jawaabti keenay. maxay jawaabtii noqotay? ninkii ee u malaynaysay maba ahaba atoorahan Steve Burton arrintan shaqo kuma laha. waxay noqotay deep fake video oo deep fake ah. deep fake dadkaanan hore u arag ama aanan aqoon waxa waaye video oo cid allaale ciddaa doontida aad soo ekaysiin kartid. waa software la qaadanayo oo tuugada ay isticmaasho badanaa dadka tuugada ah isticmaala. wuu soo qaadanayaa qofkii weji kaluu gashanaya atooraha rabtid ama atriishadaa rabtid ama qofkaa rabtid qof kastoo bini aadan ah noocaa rabtid aad soo ekaysiinaysaa. marka qofka naagtan lacagta ka dhurtay waa qof videoga noocaasa isticmaalay softwarekaas deep fake uu isticmaalay atoorahaas ee jecleeduna isaga dhigay lacagtii oo dhanna waa ka shubtay. markuu ogaaday in lasoo dabagalay dhac waa u gooye sheekadoo dhan u xiray. meel loo dabagala ma laha si loo dabagala ma laha. askartii waa u sheegeen waxay dhaheen annaga dabagal kastaan samaynay waa qaban weyne macnaha wixii oo dhan akaanadii oo dhan uu diliid gareeyey wixii oo dhan uu tirtiray meel loo raaca ninkii ma laha lacagtiina waa shubtay. lacagta waxaaba kaaga daran gurigii ee degnaayeen ee habartii iibisay. gurigii ee iibisay dadkii ay ka iibisay yaaba soo taaganba gurigeenna waxaan rabnaa inaan soo degno. gabadhi marka waxay codsatay looyar ay qabsatay waxay codsatay in arrintan dib loogu noqdo gurigiina at least gurigi loo daayo oo dadkii lacagtooda loo celiyo oo maaragtay gurigina loo daayo. taasay codsatay. habartii qaraacan waxay tiri sidee arrintan ku dhacday. habartii marka waxaa ku dhacay xanuunada maskaxda ku dhacay habartii naxdintii iyo qaraacankii habartii way xanuunsatay. ninkii atooraha ahaa musiibadan dhacday loo sheegay warbaahinta intay ordeen atoorihii u tageen waxaa la yiri ma ogsoon tahay habarku jecel waxay ku qaldantay qof iska kaa dhigay oo videoga deep fake isticmaalay wuxuu ka dhaadhiciyay adiga inaad tahay oo sidaas lacag uga shubtay. maraysa videogii ninkii soo duubay videogii asaga ninkii isu ekeysiyey asaga la tusay aa la yiri arag videogan because habarta videogii way haysay. videogii la tusay wuxuu yiri anigoo halkan taagan waayo cod ha dhihin muuqaal ha dhihin wax walba xataa siduu actionka uu bixinayay iyo wixii oo dhan atooriyo halkan taagan asaga ruuxadiisa ku qaldamay oo yiri waa anigii halkan taagan codkaygii iyo wax walba. laakiin waa ka xumahay yiri in ay habartaas ku qaldantay iyada keligeena ma aha dad badan naaga badan oo kale oo saas oo kale ay jecel waxay sameeyaan sidaas loo siraa qofaa aniga iska keedhiga lacagtana ka dhaca. marka hadda ka horba waa uga digay kuwo kalan saas oo kale uga digay haddana iyadana waa u sheegaya aniga ma aha ha la iska ilaaliyo. laakiin waa too late habartii lacagteed waa la furtay gurigii keliya usoo haray oo dacwo ka taagan tahay oo reerihii ay ka iibisay iyagii hadda dacwo ka dhexaysa oo la leeyahay iyadana gabadhina ay ku dacwoonaysaa hooyada maskaxda ka xanuunsan tahay marka gurigan
hana loo daayo. hawshaasaa gabadhii kusoo furantay. habartina haddee waxay samaysay ma laha, ninkii ay jeclaydna waa weysay, gurigeedii iyo nolosheedina way qarribtay. daawooyinka farmashiga yaalla, kuwa dhakhtarka soo qoramaya, kuwa kale oo of the counterka ah, waxaa jira dad badan oo aanan iska fiirinin runtii oo ku qaldama, dhibaato fara badanna ay uga timaado. waxaa arrin murugo leh ka dhacday magaalo ka mid ah dalka India. sharoobo oo qufacal hergebka laga qaato oo la yidhaahdo cold ref waxaa la dhahaa cold ref cough syrup. waxaa soo saara kambani asagana magaciisa la yidhaahdo Saracen Pharma. kambanigan Saracen Pharma wuxuu ku yaalaa magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka India. magaaladaasoo la yidhaahdo Madhya Pradesh magaalo la yidhaahdo oo dalka India ku taala. kambanigaas ku yaalaa, wuxuuna soo saaraa daawooyinkuu soo saara waxaa ka mid ah sharoobadan oo la yidhaahdo cold reef cough syrup. marka maxaa dhacday? waxaa dhacday in uu ku daray kambanigan sharoobadii, wuxuu ku daray maado aan loogu talagelin in lagu daro, maado la yidhaahdo diethylene glycol. diethylene glycol waa maado sun ah oonan daawooyinka lagu darin, oo wax yar oo ka mid a xataa hadday afkaaga soo gaarto uu qofka iska dhimanayo. daawadii ku daray, daawadii markuu ku darayna waxaa dhintay oo daawadii qaatay ilmo yaryara oo 20 ilaa 20 tiradooda kor u dhaafayso, oo da-doodana ka yar tahay 5 sano, aa ku wada dhinteen daawadii. daawadan waa tanaa, daawadan oo caruurta hergebkooda loogu talagalay. daawada caruurta hergebkooda loogu talagalay waa tana uu kambanigaa soo saaro. waxaa ku qoran, saa arkaysaan, paracetamol aa ku qoran, iyo wax kalaa ku qoran, halkan kama aqrin kara, laakiin paracetamol aan ujeedaa meelay ku qoran tahay. marka daawadan caruurta hergebka loogu talagalay ayaa waxay dishay 20 ilmood, ka dishay magaaladaas. markay saas dhacday waxaa la sameeyey baaritaan. marka nin dowladda hoose ka socda wuxuu sheegay kambanigii wixii maanta ka dambeeya in la xiray kambanigaas, sharoobooyinkiina in loo digay meelihii ay yaaleen ama dukaamadii iyo farmashiyaashii la dhigay sharoobooyinkaasna in laga soo celiyey, dadkiina looga digay oo la yiri ha qaadanina, intii qaadatayna inay iska daadiyaan oo aynan iyagana qaadan, ilmahoodana aynan siinin. laakiin intaas waxaa ka daran oo kaba sii daran oo ka naxdin badan in kambanigaas uusan ahayn kii ugu horreeyey oo waxaan lagu arko. macnaha kambanigan maaha kambanigii koowaad oo waxaan sameeya. kambaniyo waxaa dhacday sanadkii 2022 hay-adda caafimaadka ee la yidhaahdo WHO waxay ogaatay daawooyin ay ku dhinteen ilmo gaaraya tiradooda 70 cunug. macnaha 70 cunug ilmo gaaraysa tiradooda waxay ku dhinteen dalka Gambia ee Afrika ku yaala. dalka Gambia waxaa ka dhintay ilmo tiradooda gaaraysa 70, oo waxay ku dhinteen isla sharoobadaas oo kale, maaha isla nooceedii, laakiin sharoobadaas oo kale oo kambani kale uu soo saaray sanadkii 2022 ahayd. isla kambanigaas daawooyinkiisii waxaa ku dhintay ilmo iyagana ka dhinteen dalka Cameroon, iyagana ilmo kale ka dhinteen, sidaas oo kale sharoobooyin kale loo geeyaa ay ku dhinteen. sanadkii kasii horeeyey asagana waxaa dhintay ilmo tiradooda gaaraysa 18, wadanka la yiraahdo Uzbekistan dalka la yiraahdo iyo Ciraaq, iyagana waxaa ka dhintay caruur tiro badan oo iyagana daawooyinkaas loo geeyey. kambaniyadaasoo dhan markii la dabagalay marka oo daawooyinkaas soo sameeya waxay noqdeen kambaniyo ku yaala dalka India. marka tan waxay noqonaysaa digniintii 5aad ee hay-adda caafimaadka WHO ee u soo saarto kambaniyadan daawooyinka generiga sameeya ee India ku yaala, digniintii 5aad ee siiso ee noqonaysaa. marka daawooyinka generiga sidoodaba waa daawooyin lala mid dhigay ama xoogaa u soo dhowo daawooyinka braanka ahaa, u soo dhow laakiin qiimo ahaan ka jaban, waxtarkoodana xoogaa u soo dhow yahay. waxay kaloo sheegtay hay-adda caafimaadka ee WHO in ay la xiriirtay waaxda daawooyinka ee wasaaradda caafimaadka India, inay la xiriirtay oo kala hadashay kaysaskan soo noqnoqonaya ee daawooyinka ku saabsan, in ay dowladda India soo faragashato inay wax ka qabato. daawooyinkaas generiga ah dunida inta loo iibgeeyo 20% waxaa soo saarta dalka India soo saara, kambaniyada India soo saara. sidoo kale 90% daawooyinka la geeyo Afrika waxaa soo saarta India. 90% kambaniyada India waxay soo saaraan daawooyinka Afrika la geeyo.
oo weliba kuwa sharciga sida sharciga loo geeyaan ka hadlaynaa, kuwa kale oo nidaamka kale loo geeyay iyo suuqa madow iyo kuwaas waa sheeko kale. laakiin kuwa sida sharciga loo geeyo boqolkiiba 90 daawooyinka la geeya Afrika waxaa soo saarta India soo saarta kambaniyadeeda. marka micnaheeda waa ilaaha noo maqan. waayahay, barnaamijku waa barnaamijkeenii Danger Show aad nooga barteen inaan kusoo qaadano qodobadan oo kale oo qosolka iyo layaabka iyo wax walba isugu jira. marka haddii aad barnaamijkeena maanta kugu horeyso oo aadan channelkeena hore u arag, waxaan ku leenahay gacmo furan kusoo dhawow. haddaa horey noola socotayna waxaan ku leenahay sidoo kale adigana soo dhawow. waana ku mahadsantihiin daawashadiina. haddaadan subscribe noo ahayn, fadlan subscribe-ka noogu dhufo, asxaabtaada la shargaree si channelka meel fog noogu gaara haddii ilaahay idmo. intaan barnaamijkan midkiisa kale ku kulmi doonno waa aniga oo Basra Bilana oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.